maalintii khamiistii shalay waxa madaarka cigaal international magaalada Hargeysa soo gaadhay xubnihii sida lacagtii dawladda federaalka Soomaaliya ugu deeqday dadkii saameynta iyo dhibaatadu ka soo gaadheen duufaanadii dhawaan ka dhacay deegaanada ku yaal xeebaha galbeedka Soomaaliland. Deeqan lacageed oo lagu sheegay inay dhammayd $1 milyan ayaa la gaarsiiyay xukuumadda Soomaaliland isla markaana lagu wareejiyay guddiga u qaabilsan arrimaha gurmudshada dadka dhibaatadu soo gaarsiiyeen duufaanadu. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Saad Cali Shire oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa in ay soo gaadhay lacagtaasi oo ay gudoomeen horta dee way soo dhaweynayna ku kasta oo waxay nagala qabanaysaa aafadii inay soo gaadhay duufaankii ka dhacay bishan ka dhacay maxaa lahday deegaanadeena xataa deegaanada awdal waana isku dhahaan xusteen kale mooyaane bishii October 2011 markii abaarta ay ka dhacday Soomaaliya weynu u gurmanay waxaan u geynay lacag ilaa $900,000 ayaynu gudbinay marka waynu soo dhaweynayna waxaan ka saxayaa oo keliya labada gobol ay taabatay duufaanku taabtay maaha waqooyi galbeed iyo maaha iyo awdal duufaanku wuxuu saameyn ku lahaa laga soo bilaabay Sanaag gobolka Saaxil iyo gobolka Awdal saddexdaa gobol marka taa wixii ka baxsan runtii waan soo dhaweynayna waxaan weeyay guddiga afooyinka ayaa lagu wareejiyay oo inta gacanta ku haysta barnaamijka gargaar. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ka hadlay deeqda lacageed ee xukuumadooda ugu tala gashay ka qayb qaadashada gurmadka dadkii saameynta iyo waxyeeladu ka soo gaadhay duufaanada ka dhacay galbeedka Soomaaliland. Waxaan rabaa inaan hadda fursadan maanta uga faa'iideysto jawaabta ay dawladda federaalka Soomaaliya ka bixinayso shacabka Soomaaliyeed ee ku tabaaloobay gobolada Awdal iyo waqooyi galbeed oo sidaan loo wada socono ay dhibaatooyin Soomaaliland oo sidaan loo wada socono ay dhibaatooyin badan oo ay keeneen roobabkii iyo daadadkii iyo duufaanadii ku dhuftay ay u geysteen dad ku leedeen deegaankii iyo dhulkiina dhibaato weyn iyo barakac gaarsiiyay sidaa daraadeed dawladda federaalku waxay ku yabooqday kuna deeqaysaa $1 milyan oo ay ugu tala gashay in loogu gurmado qoysaskii ku waxyeeloobay taageero ay uga geysato ilaahay idinkiisa sida ugu dhaqsaha badanna ay dawladdu u fulin doonto waxaanuna had iyo jeer sharaf noo ah gacanta ayna siiyaan wada shaqeyneed culimada Soomaaliyeed. Arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo khilaafka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya uu marayo halkii ugu sareysay isla markaana madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya in ay dagaal weerar ku soo qaaday xuduudaha Soomaaliland sidoo kalena ay hurunayso colaadda ka taagan dhinaca deegaanka Tuqraq. Geesta kale Soomaaliland ayaa dhalinyarada had jeer u safarta ama tagta dhinaca magaalada Muqdisho marka ay ku soo laabtaan magaalada Hargeysa waxa ay u taxaabtaa xabsiga ama waxa uu yaal xadhig. Axmed Digaale, SAB TV.